waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhammaan asxaabta qaaliga oo ku xiran kanaalkeena Somali Technology waxaan idinku salaamayaa meel kastoo dunida ka joogtaan. salaanta islaamka, salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maanta waxaan wadaa 2 qodob oo ku saabsan ama 3 oo ku saabsan WhatsApp-ka oo muhiim ah, qaarna ay cusub yihiin oo dhawaan la soo kordhiyay, waana siraha ugu badan oo maanta maaragtay loo baahan yahay lagana ogaado WhatsApp-ka. haddii aan soo furo WhatsApp-keena waa GB WhatsApp-kan. marka koowaad waxaynu galaynaa waxaan ka bilaabaynaa kuwa hore. marka waxay la xiriiraan daatada iyo maaragtay isticmaalka daatada maxaa la dhahaa spaceka mobilka intuu kaga fariisanayo WhatsApp-kaaga maaragtay wada sheekaysiga ku samaysay ama maaragtay dadka la hadashay space ayuu mobilkaaga ka qaadanaya. marka sidii aad uga yareyn lahayd spacekaas ayaynu ka hadlaynaa. aynu soo furo settingkan kadibna waxaynu galaynaa storage and data meesha ku taalo. waxaa ku yaala 2 option oo halkan manage storage iyo data network usage. marka network usage kana space buu kaga fadhiyaa, kana space buu kaga fadhiyaa oo ah maxaa la dhahaa manage storage. gudubna oo ka bilowna kan ah network usage. callskaaga maaragtay waqti dhow maadaama restore gareeyay, marka wax badan maaragtay muus isticmaalin, saa darteed meesha laga restore gareeyana waa tan oo restore ayaad u diraysaa. nadiif ayuu saa ku noqonayaa spaceka uu kaga fadhiyay mobilkaaga daatada. manage storage haddii sii gallo wuxuu ku fadhiyaa 115 MB, isagana dhawaan ayaan restore gareynay. saa darteed waxaynu yeelaynaa isagana dadkan ayaad saas oo kale u taabanaysaa, kadibna waxaad dhahaysaa saan oo kale ayaad u taabanaysaa kulligood wixii ay kuu soo direen dadku. saas ayuu ku noqonayaa nadiif. marka aan ka gudubno haddii aan qodobka 3 oo isla meesha tan laftigeeda ku jira aan u gudbo, waxa weeyaan useless data for calls. yaree maaragtay daatada aad ku hadlaysid waqtiga aad hadlaysid, macnaha callska daatada aad isticmaalaya mobilkaagu yaree. waxaad taabanaysaa keliya halkan oo waa fudhay. marka goorta qofkii call kula hadlayso maaragtay WhatsApp-ka data badan oo ka cuni maayo sidii tii hore oo kale. halkan marka aynu ka noqono qodobka 3, tusaale qof ayaynu soo maaragtay la hadlaynaa. qofka waxaan rabnaa in maaragtay wix aynu u diray ay gaaraan, laakiin uu hal mar kaliya arko oo dib dambe u arag. mar la arag baynu kaga dhigaynaa marka waxaad sameynaysaa tusaale halkan ayaad taabanaysaa sawirada laga diro. tusaale waxaanu u diraynaa sawirkan ayaynu u diraynaa waxaan kaba soo qaad ku qorayaa waa baashta waa garanaysaa baa malaynaya sagaaro weeye. marka sawirkan waxaanu ka rabnaa inagu muhiimadeenu wax kale maaha in qofka maaragtay uu hal mar arko dib dambana uu soo arag. marka waxaan sameynaynaa waxaan taabanaynaa lambarkan yarka 1 hoos ku yaala photo disappear after markii opened uu furo. hal mar qofkaas goortu soo furo ayuu arkayaa, dib dambana uu arki maayo. marka waxaan dhahaynaa sendi way u dhacaysaa system qaab noocan ay u dhacaysaa. marka goortii uu arko ayuu maaragtay isu istirtiraya sawirkan, dib ayuu isu tirtiraya, isaga nadiifinaya, mobilkiisa ku raagmaya. marka asxaabta qaaliga waan salaamay. maanta casharka idin wadayna intaas ayuu ku kooban yahay. si qodobkan dambe dhawaan ayaa la soo kordhiyay, marka aad baad u mahadsantihiin. waxaan idin leeyahay kanaalku waa kanaalkiinii. markasta maaragtay inaad sii faafisaan iyo maaragtay inaad dad la wadaagtaan ku dadaala. qodobka kaliya meeshan YouTube-ka u furtay waxa weeye wixii aan aqaan inaan maaragtay dadkayga la wadaago oon ka aqaan teknolojiyadan maanta cusub sida maaragtay Android-kan mobilkan oo badanaa isticmaalkiisu badan yahay. haddii aan sii gudagalo markay uu arkay sawirkiisa maaragtaan opened uu furay, laakiin dib dambe uma arki doono uusan. marka waad salaamantii. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi daafaha dunida meesha kaga nooshiin asxaabta qaaliga oo ku xiran channelka Somali Technology.